dalka aynu jaarka nahay saaxiibkana nahay imaaraadka waxa ka muuqda madmadow fara badan iyo mugdi iyadoo shacbiga si dhaba loogu soo bandhigin heshiisyadaas heshiiskii hore ee aan rasmiga ahayn waa originaladiisii la keenin ee golaha shacbiga golaha wakiiladu ansixiyey heshiiskan cusub wuu burinaya ay haddana la galeen heshiiska hore horta laba dhinac buu ahaa dhinaca Somaliland iyo dhinaca DP World heshiiskaas shareholders agreement qaybta ama qaybta saamileyda qodobkiisa 15 waxa uu sheegayaa in labada dhinac midkoodna aanu iibin karin saamigiisa 5 sanadood ugu horeeya labada dhinacba heshiiskaas way jibin waynu ogsooneen saamaysha la kala lahaa DPO waxa la hayay 65 Soomaaliland 35 bay lahayd iminka maxaa la yiri Soomaaliland maxay leedahay 30 DPO wala maxay leedahay koob iyo konton سالي توان كهدل مي محاها إثيوبيا حاجة لقى كان شان يتوان واحد لقى سوق هذا دي بي ويل شان واحد لقى سوق هذا هدل مي سومالي لا كل كي هربا أنك قوة سنين سومالي لا إنه هدل مي شان يصدر لسيام لا وين كوي كنت يا لا تعال حدنا إن ولي بلقى سيق هذا والله يلا هذا حدنا دي بي ويل بس سامي كي بس إثيوبيا حال دي أي ما أنت كي بس إثيوبيا بريطانيا كي بس هدل مي محاها إسرائيل محاول دينية وهي لأن الأغلبية دي بهايسة أنا وحنا أنا كو أرجنا أغلبية دا سامي هدل مي بربرة كله له وإن هذا يجور عليه وغيران كود يكونتون أيارة الصومال له إما كان هدل مي محاد هدل مي جيبوتي يديفي والمحيس كو حيا جيبوتي وحيلا هاي إلى هدلمي تضري اللحدن يا المقلة هدلمي بخاها أنت هدلمي أي لا هاي سامي وين يداره واحد يسقى يا واحد ويا ودك يجا لما أورانك كان ذكرك على جمال السكر لكن ويش مين اسمها إسماعيل وين أنت كذا كان ويش مين تاس هو ويش مين لكن هدلمي بخاها هنا هدلمي كي ترى هدلمي أنت عشان هدلمي كسر شيء وحنا لا يلا هذا سفر نتيجة ودنك لما يبينك سقالية توانك هدي الملية مكا كل كي هورنا الصومال واحد لها شن يصدق شن والله سيق هذا لقى بقى هذه السيدة يقول تكرفة لكرت عشان تهدي الصومال العيلان هاي أنا كل كي هورنا بقى وذيني أي هدي الميدي في ولا يقول تكرفة لكرت أنا واحد لا تهاي أنت عسينا هدي الميدودسي علوس كنت هاي هدي المي الصومال الآن أنت نسبة مهل بقى وحبا سي نجاح إن له يسوع شيء كفرنتو ورمدي سنين أنا كبر برا إن لا تيجليو إن العقل جليو لكن سوى حلقة حلية سومالي محين اسكوها السنة سوفرن تيجي معها هدان سومالي لا نسكوها نت سوفرن تيجيني سيدي لوير هذا عيد كلا اللي جايبيه اوكي اسمع هذه dood baa oranaysa boqolka saytuka Ethiopia la siiyay maadaama ay tahay suuq weyn la doonayo in halka wax u marto waa in sagaytuman kaas xaq bay u leeyihiin in la siiyo oo maadaama la doonayo in market u noqoto wax kale kala soo degan cid u weyn la doonayo isticmaashay tahay dad ba dooda noocaas qaba oo caadi waa dood hadii ma caafimaad oo wanaagsan laakiin 19 yaa siinaya yaa ka iibinaya yaa awoodaas leh kolba hadaanay awoodaas Soomaaliland lahayn oo cid kale leedahay annaka Ethiopia ka iibinay waxay aniga ila tahay wax khalad ay tahay Soomaaliland labaatan baad sheegaysaa 30 hadii Ethiopia la siinayo cidda bixinaysa waa in noqotaa Soomaaliland laakiin say la yiraahdo hadii ma sharikad ajnabi ah ayaa hadii ma ka iibisay hadii ma saamiyal berbera kullu leh hadii ma dadka la ka iibisay أنا واحد لا تي إثيوبيا أنا أمو وناكسنا سوماليا أنا أمو وناكسنا إن هذه المية محاها مقام كايو مذهبنا ذا إنه ربنا أمو وناكسنا أنت وحدة سئة هوران أنا وهراي هذه المية كل مياه لها اللي ننها جوج حمي إنه حقر سنة لمبوذا ماشى هوج حمو عاد فول حمبا تعالى
dadka ha loo sheego ha la hordhigo ha loo sharxo lagu diidi maayo wixii danta ku jirto dawladda annaka ugu horeyna cidda ku taageerta ee tiraahda dawladda ha lala shaqeeyo waxa lala qabto laakiin soo kay noqoto hadilmay muxuu ahaa wixii danahi hadilmay laga maarmaanka ahaa in cid kale ku takarfasho hadilmay waxay la tahay inay arrintaasi khalad ay tahay okay waxaad ka dhawaasay in caqabad arrintan wada hadalladii Soomaaliland Djibouti la filayay ka qabsatay caqabad ku noqon karto maxaa caqabadahan keeni kaas leedahay waa sabab noqon anigu arrintii hadilmay maxaa prime ministerkii isagoo jooga oo arrin aynu ognahay wali Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay ku kala bixin qaanuunka caalamiga loo fiirsado oo sovereignty ah saameynaya in hadilmay muxuu ahaa isagoo fadhiya magaaladii waliba jooga loo yeedho oo dushiisii wax lagu saxeexo waxay ahayd wax loogu tala galay in hadilmay Soomaaliya lagu xumeeyo prime minister kana shakhsiyan lagu xumeeyo taasi iyadoo madaxweynihii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada fadhiisan doonaan miyaan ahayn hadilmay maxaa kariirad loo dhigay wada hadalladaas inaanay hore u socon oo aanay hadilmay muxuu ahaa dhaawac ahayn aniga waxay la tahay damage baa dhacay meeshii ka dhacay damage control baa loo baahan yahay arrintaas sidii si degdeg ah hadilmay wax looga qaban lahaa iyadoo danta Soomaaliland laga hadlayo waa inay hadilmay dawladdu hadilmay ka howlgashaa